warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal habeenkii xalaha ka dhacay degmada Waajid ee gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dagaalkan ayaana u dhaxeeya shabaab iyo ciidamada Koonfur Galbeed ee saldhigga ku leh degmada Waajid ee gobolka Bakool. Inkastoo la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan, ayaa dhinaca kale la sheegaya in dhinacyadu xalayto hubka noocyadiisa kala duwan ay isku adeegsadeen, wuxuuna yimid ka gadaal kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku ekeeyeen afaafka hore ee saldhig ku yaala degmada Waajid ee gobolka Bakool, halkaasoo fariisin u ahayd ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ilo kala duwan ayaana xaqiijinaya in xaaladda guud ee saaka ay tahay mid degan, isla markaasna ciidamada Koonfur Galbeed ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah shabaabkii xalayto weerarka ku ekeeyay fariisimaha ciidamada Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Waajid ee gobolka Bakool. Waxaana jirin ilaa hadda wacaal rasmi ah oo ka soo baxay dhanka hay'adaha amniga ee Koonfur Galbeed oo ay kaga hadlayaan weerarkaasi. Ayaa dhinaca kale shabaab waxa ay guul ka sheegteen weerarkaasi, iyagoona sheegay in agabyo kala duwan ay ku furteen weerarkii xalayto ay ka geysteen saldhigga ciidamada Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Waajid ee gobolka Bakool. Muddooyinkii lasoo dhaafay, shabaab ayaa kordhinayay weerarada kala duwan ee deegaanada Koonfur Galbeed ay ka geysanayeen, kaasoo ay la bartilmaameedsanayeen ciidamada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale kuwa Itoobiya ee saldhigyada ku leh qaybo ka mid ah deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolada Baay iyo Bakool. عين العافية هوسبيتال waxau ka daweynayaa xanuunka baabasiirka. Ma dareemaysaa dhabar xanuun, caajis joogta, cuncun dhanka hoosa, saxarado kugu adag iyo hamiyari dhanka gogosha? Hadaba iskaga ciribtir xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn. Wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada kala eberli halhal 37 37 83 ama eberli halhal 37 37 86 ama lambarka gaaban ee 3 7 7 7